قيمة وينا قراني ماضو قيمة وينا قرشو يا قوم بيربتا قراني ماضو نفتا قالي قالو ريربتا قراني ماضو قبيل يا دانست لك الدفاع waa arday agoon ah oo wax ka baratay iskuulka Al-Mustaqim dhalinyaro firfircoon oo gacanta ku haysa ayaa ku beeray wadaniyad xoog leh oo aad ka dareemi karayso kolka aad la sheekaysato iskuulkan waxaa aasaasay dhalinyaro gudaha dalka jooga iyo kuwa qurbaha jira kuwaasi oo go'aansaday inay si mutadawacnimo ah wax u baraan ardayda agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ee ku nool Muqdisho iyo deegaanada u dhow Cabdirashiid oo ah maamulaha iskuulka ayaa maanta TV u sharaxay cid ka caawisa dhaqaalaha ku baxo iskuulkani iskuulkan waxaa dhigto ilaa arday gaarayso 100 iyo waxaan ku raadaa 60 arday oo agoon iyo danyar isugu jirto kulligoodna waxbarashadooda waxaa kafaalo qaaday walaalo Soomaaliyeed oo shakhsiyaad ah iskuulkan aad arkaysaan caruurtan quruxda badan aad arkaysaan waxbarashadan nidaamiga ah ee wanaagsan ee aad arkaysaan intaba wax ay dawladda bixiso ama hay'ado kale oo caalami ay bixiyaan ma ahan waa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo runtii inta badan ku nool qurbaha kuwaasoo garawsaday in ay dalkii dib u soo fiiriyaan waxaan ogsoonahay wadankeena Soomaaliya waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ka dhacay ha u badnaadaano dhibaato dhanka oo bini'aadanka ah waxaan ogsoonahay in dad fara badan aan ku weynay dagaaladii kala duwanaa ee la soo maray marka dagaaladii waxaa ka dhashay in aabayaal fara badan iyo hooyayaal intaba lagu waayo intaas marka aabayaashii la waayay waxay maanta ka tageen caruur fara badan hooyooyinkii sidoo kale marka hay'ad Al-Mustaqim ahaan waxaa nagu dhaliyay in ilmahan maanta wax barno waa dareemi kartaa canugu markuu yahay aaba la'aan iyo markuu hooyo la'aan intaba yahay dhibaatooyin fara badan haysanaya haddii ahleed dhanka maxaan ku rahdaay ka warqabkiisa waxbarasho iyo caafimaadkiisa iyo cunooyinkiisa intaba waxaan garowsanaa marka maadaama cid ka fikiraysa aysan jirin oo aysan la mid ahayn kuwa aabayaasha iyo hooyaasha haysta aysan la mid ahayn in aanu anagana dhanka waxbarashada aan xoog ka saarno run ahaantii ficiliyana waan ku guuleysanay iskuulkan oo muddo 9 bilood hadda furan sanad dugsiyeedkan aan furnay hay'aduna waa hay'ad iyaduna muddo sanad iyo bar ah soo shaqeynaysay marka caruurtan qaar ka mid ah macallimiinta iskuulkani casharada ka bixiya ayaa maanta TV waxa ay kaga warbixiyeen qaabka ay casharada ardayda ugu gudbiyaan aniga qaasatan waxaan dhigaa maadada af Soomaaliga afkeen hooyo iyo maadada sayniska ka bixiya iskuulka markii la fiirsho maadooyinkaas ardaydu aad ugu fiican yihiin dhamaan maadooyinka qaasatan maadooyinka aan bixiyo inta aan warqabo way fiican yihiin arday duruusta qaabka ay ugu socoto markii la fiiriyo ardayda iskuulka waxay yimaadeen 5 maalin oo kale sidii la sabdi ilaa in arbaco marka 5taas maalin kasta kamid ah xiisada u soo gala marka si fiican ay u qaataan maadooyinka kalena waa ku fiican insha Allah iskuulkan waxaan ka dhigaa maadada tarbiyada iyo carabiga qaybaha dhiga waxa waaye galaaska koobaad galaaska labaad iyo galaaska saddexaad alxamdulillah iskuulku wuxuu noo furan yahay muddo sanad ah daraasadina waxay noo maraysaa xilli gabagaba ah waxaan soo qaadanay imtixaamaad sida imtixaan 1 imtixaan 2 kadib tayram imtixaanka tayramka haddana waxaan ka soo baxnay imtixaanka tayramka ilmaha waxbarashadooda qaabka ay tahay waa qaab alxamdulillah waxaan u malaysaa manhajka inuu ku saleysan yahay manhajka carabiga aniga tusaale waxaan dhigaa class 1 class 2 class 3 fasalada marka fasalka koowaad u dhigaysid fasalka labaad marka u dhigaysid isku mid maaha waxa isticmaalnaa markaad macallin tahay wax awood lagaaga baahan yahay inaad isticmaashid oo ah sabarka dulqaadka ardayda maadaama aynan ahayn arday agoon ay ka duwan ardayda kale marka qaabka anaga wax u barno way ka duwan tahay qaabka ardayda kale loo baro sababta ah arday waxa wax baraysaa aan aabis nooleen ama danyar qalbiyana laga yaabo inay dhaawacsan tahay qalbigiisa maadaama marka aad baraysid laga yaabo marka guriga ku laabto wax maanta intuu soo qadaynin oo cashadiina uusan awoodin marka way ka duwanaanaysaa marka sida ugu dhimrinaysid ardayga kale ardayda qaarkood oo la hadlay maanta TV ayaa dhankooda waxa ay sharaxaad ka bixiyeen sida ay halkani wax kaga bartaan iyagoona u mahadceliyay maamulka iskuulka Al-Mustaqim iyo dadka ka taageera agabka ay wax ku bartaan السلام عليكم أنا مجاي سامس إيشيدنا أوديك تسكول كالمستقيم كان معوج مدعنا عيد كستوع برشيد تفعل قاضي أولا السلام عليكم أنا مجاي مدي محل أوديك تسكول كالمستقيم
waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa macallimiinta iyo maamulaha oo naga caawiyay waxbarasho. مولد عيسى محمد مانتا TV مقدشو.